xukuumadda Soomaaliya ayaa mar kale ku adkaysatay go'aankeedii bishii Juun ay ka qaadatay khilaafka dawladaha qaliijka iyadoo sheegtay in wasaaradda arrimaha dibadda oo kaliya ay xaq u leedahay inay ka hadasho arrintaas. ilaa 4 maamul goboleed ayaa ka horjeestay go'aanka dawladda. haddaba khilaafka dawlad goboleedyada iyo xukuumadda federaalka sidee ayuu ku saameyn karaa nidaamka dawladnimo ee Soomaaliya? wariyaha BBC-da Cali Nuur Salaad ayaa warbixintan Muqdisho inooga soo diray. nidaamka dawladnimo ee Soomaaliya waa uu soo kabanayay 10kii sano ee ugu dambeysay. waxaa gudaha dalka ka dhacay 2 doorasho oo si nabad ah u qabsoomay. waxaa tallaabo fiican loo qaaday hirgelinta nidaamka federaalka ah oo ay Soomaaliya qaadatay. balse waxa uu jahwareer ka abuurmay awoodda dawlad goboleedyadii la dhisay iyo dawladda federaalka ah. taa oo ay bannaanka u soo saartay arrinka la xiriira khilaafka khaliijka. qabyo qoraalka dastuurka Soomaaliya qodobkiisa 54 ee ka hadlaya awoodaha dawlad goboleedyada waxa uu qabaa in kala qaybinta awoodaha awood qaybsiga siyaasadeed iyo dhaqaale ay ka wada xaajoon doonaan xukuumadda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda Soomaaliya marka laga reebo ay xukuumadda Soomaaliya awoodeeda yeelanayso. maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ah ayaa isku maandhaafay arrinka la xiriira khilaafka khaliijka iyo go'aanka ay dawladda Soomaaliya ka qaadatay. dawladda dhexe oo keli ah ay u xil saaran tahay siyaasadda arrimaha dibadda ee waddanka. marka dawladaha maamul goboleedyada maadaama ay ka mid yihiin dawladda federaalka oo nahay dawlado walaalo aan nahay maamullo aan walaalo nahay waa soo dhaweynaynaa maaragtay wixii ay qabaan laakiin waa inay u soo mariyaan sida habboon oo kala hadlaan madaxda dawladda ma aha in ay kala hadlaan saxaafadda. maamul goboleedyada Puntland, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo ugu dambeysay ayaa qaatay go'aan kale oo ay ku taageerayaan isbahaysiga uu Sacuudiga hogaaminayo, iyaga oo sidoo kale dawladda Soomaaliya ku eedeeyay in aysan ka talagelinin go'aanka dhexdhexaadnimada ah oo ay dawladda qaadatay. dawladdu waa federaal, waxay ka dhisan tahay dawlad goboleedyada oo matalaya shacabkii Soomaaliya la dhihi jiray ama la yiraahdo in lala tashado ayay xaq u leeyihiin kadibna wixii la isla qaato dawladda federaalku ay ku matasho goobaha ay tegayso. xiriirka dawlad goboleedyada federaalka ah ee Soomaaliya ee arrimaha dibadda kuma eka arrinka khaliijka ee iminka taagan oo kaliya, balse waxa ay heshiisyo la galaan shirkado waaweyn oo ajnabi ah oo ka howlgala deegaanadooda. sidoo kale waxa ay safarro rasmi ah ugu baxaan dalka dibaddiisa iyaga oo aan shaacin waxyaabaha ay dawladahaasi ka wada hadlaan. haddaba xeeldheerayaasha dhanka sharciga ah ayaa aaminsan in jiritaanka dawladda Soomaaliya uu ku xiran yahay in dawladda dhexe looga dambeeyo howlaha quseeya arrimaha dibadda. maamul goboleedyadu waxay xaq ugu leeyihiin dawladda federaalku wixii arrimaha gudaha ah, wixii khayraadka gobolada ah, wixii ah muxuu ahay awoodda gudaha sidii loo qaybsan lahay. laakiin marna kuma jirto xiriirka dibadda hal magac iyo hal muxuu ahay dawlo ayaa lagu matalaa. xiisadan oo soo bilaabatay bishii Juun ee ina dhaaftay ayaan la ogeyn xilliga ay soo gabagaboobi karto. Cali Nuur Salaad, BBC, Muqdisho.